gobollada iyo tuulooyinka dowladda deegaanka Soomaalida waxaa ku wada sugan ciidamada Liyu Police iyo askar ka tirsan jabhadda OWAN oo xabad joojin iskeeda ku dhawaaqday. Arrintan ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu isbeddel baaxad leh ku sameeyay siyaasaddii ku wajahnayd jabhadaha OWAN ay ka mid tahay. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa yiday siyaasaddii cusbeyd ee Abiy Ahmed iyagoo liiska argagixisada ka saaray OWAN iyo jabhada kale. markii ay Itoobiya si la yaab leh u beddeshay siyaasaddeedii OWAN ayaa mas'uuliyiinta jabhaddu waxay ka degeen Addis Ababa iyo Jigjiga si ay isbeddelka dhacay uga faa'iidaystaan. askartoodii oo xabad joojinta ka faa'iidaysanaysa ayaa duurka ka soo baxay oo magaalooyinka iyo tuulooyinka si diiran loogu soo dhaweeyay. arrintan ayaa dad badan waxa ay u arkaan arrin la yaab leh, waxayna ku noqotay arrin faajicisa cadowgii shalayto OWAN iyo Liyu Police oo shaaha wada cabaya oo wax dareen uusan dhexdooda oolinin. qaar ka mid ah shacabka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa dhankooda u arka ama sheegay inay ku diirsadeen colaadda labada dhinac ee istaagtay. Liyu Police waa ciidan uu abuuray madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar asagoo markaa u arkay cadow jabhadda OWAN balse masiihayaha madaxweynaha ee dowladda deegaanka Mustafa Maxamed Cumar ayaa cadow u arag OWAN taasi beddelkeedana waxa uu u arkaa dagaalyahamo iyo mujaahidiin iyo dad naftood hurayaal oo markaasi u dagaalamayay xaqooda amaba u soo halgamay deegaankooda. si kastaba ha ahaatee cadowgii shalay ayaa hadda wada caweynaya oo wax colaada oo muuqata aysan dhexdooda markaasi ka wada jirinin.